waxaanu isla garanay in aan meydadka la aasin ilaa inta xukuumaddu ay soo saarayso dilkii qorshaysnaa ee ay warbaahinta ka sheegtay waxaanu isla garanay haddaanay si degdeg ah 100% ugu dhawaaqin natiijada rasmiga ah ay hayaan aanu qaadi doono go'aamo qadhaadh oo aan cidna ka farxin waxaan halkan ku soo gudbinaynaa warmurtiyeedkaasoo ujeedadu tahay warmurtiyeedkaasoo ka soo baxay labada beelood ee kala ah beelweynta Bakar Ciise iyo beelweynta Xasan Maxamed ee dilkii kaga wada dhacay caasimadda Hargeysa kadib markii aanu ka war sugnay muddo 11 cisho ah xukuumadda dilkii ka dhacay magaalada Hargeysa ee lagu dilay labada marxuun ee kala ah marxuum Khadar Ibrahim Maxamed iyo marxuum Suldaan Axmed Cabdillaahi anagoo ah ehelada labada marxuum ee uu falka foosha xun ku dhacay waxaanu halkan ummadda reer Somaliland ugu soo gudbinaynaa go'aankayga kadib markii aanu si qoto dheer u lafagurnay arrimaha la xiriira dhacdadii waxshanimada ahayd ee labada inan lagu dilay suuqa weyn dhexdiisa iyo baaritaankii laga galay falka kadib taasi oo ilaa hadda wax natiijo ah aanay ka soo saarin xukuumadda marka laga reebo in ay soo saareen in dilkaasi ahaa dil qorshaysan oo ay 85% ay hayaan xogtiisa kadib kulankii ugu dambeeyay ee aanu la yeelanay wasiirka arrimaha gudaha waxaa nooga muuqatay inay xukuumaddu qaarinayso natiijada dhabta ah intaa kadib markii ay labada beelood ay yeesheen kulamo isdaba joog ah waxay isla qaateen oo ay go'aan ku soo saareen warmurtiyeedkan hoos ku xusan markaanu aragnay in dilkii dhacay 20kii bishii 7 2025 uu ahaa dil qorshaysan oo raadgadasho ah sida ka soo baxday laamaha amniga laba inay dacaayad baahsan oo xilgudasho la'aan ahi ka jirto laamaha amniga taana dayacaad baahsan oo xilgudasho la'aan ahi ka jirto laamaha amniga taana waxa cadayn u ah dilkaasi waxa uu dhacay 7:00 ilaa 8 habeenimo laba waxaanu ka dhacay bartamaha magaalada Hargeysa 3 waxa joogay askar ka tirsan ciidanka booliska indhahana ku hayay markuu kiiskaasi dhacay lambar 4 waxa ay boolisku goobta imaadeen hawlgalkan bilaabeen goor ku dhow 10 habeenimo 5 inay soo saareen ciidanka boolisku soo saareen warmurtiyeed 24 saacadood kadib dilka hadaba inay xukuumaddu jahawareerin ku samaysay iyo kicin deegaanada ay ka soo jeedaan marxuumiintani oo ay cadayn u tahay xadhiga suldaanku in 22 caanamaal meydadku ku jiraan talaagada oo aanu ka warsugaynay dawladda kuna ixtiraaminay nagana soo bixin wax aflagaada ah iyo cid wax ka sheegta toona xukuumadduna maalin walba lahayd galabtaan ku dhawaaqaynaa iyo beri ayaan ku dhawaaqaynaa natiijada ee noo samra taasina ay sababtay in meydku waqtiga intaa leeg ku jiro talaagada cadayna ay u tahay kulan warbaahineedkii ay soo saartay xukuumaddu intaana ay garab socotay hagardaamada jahawareerin iyo ururin ay xafiisyada wasaaradaha qaarkood ay ku ururinaysay dad aanay waxba ka qusayn arinka oo miidiyaha ka hadlay hadaba waxaanu go'aansanay oo isla garanay labadayada beelood qodobadan hoos ku xusan waxaanu isla garanay haddaanay si degdeg ah 100% ugu dhawaaqin natiijada rasmiga ah ay hayaan aanu qaadi doono go'aamo qadhaadh oo aan cidna ka farxin qodobka labaad waxaanu isla garanay in aan meydadka la aasin ilaa inta xukuumaddu ay soo saarayso dilkii qorshaysnaa ee ay warbaahinta ka sheegtay lana helayo ciddii geysatay falka foosha xun ee ugubka ku ah qarannimada Somaliland
waxaan u mahadnaq u jeedinaynaa cid kasta oo garab istaag noo muujisay sidoo kalena ay damaqday dhibaatada nagu dhacday waxaa labada beelood isla qaateen arrinkaa loo xil saaray guddi 23 xubnood ka kooban oo ay hogaaminayaan labada jiif waa labada jiif ee beelaha Boqor Ciise iyo beelaha Xasan Maxamed cid kalena lagala xidhiidhi karin qodobka ugu dambeyn waxaanu shacabka Soomaaliland la wadaagaynaa in arrinka la siyaasadeeyay sida muuqata xogihii dawladdu nala wadaagtay oo ay macnaheedu tahay gacmihiina wax ku qabsada amba ku arsada الله mahadle wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta labada beelood ee marxuumiinta ku jira talaagada oo muddo 12 cisho ah ku jiray ehelkoodii ayaa maanta halkan war saxaafadeed ka soo saaray war murtiyeed waa kala soo saaray 3 qodob 4 qodob baan doonayaa inaan ku ladho ugu horeyn waa caado uguba waa dhacdo uguba waa waxaan horu dhicin 32 sanadood oo aynu ka taageerayn maanta halkaynu joogno halkaynu marayno qarannimadeenu maanta halkay marayso ayaanay dhicin oo caado cusub iyo dhaqan cusub ay tahay in bartamaha Hargeysa muwaadiniintii reer Soomaaliland lagu toogto madaxa lagaga toogto waliba aan nasiib darrada dhacday ay ciidankeenii iyo ciidii amniga gacanta ku haysay wasaaradda arrimaha gudaha taliska ciidamada sirdoonka iyo hay'adaha kale amniga la shaqeeya aanay ayaguna wax talaabo ah oo ummadda qancin kara ilaa imanka aanay odhanin oo aan ahayn inay hayaan haddana ku dhawaaqi la yihiin afkana kala meermeerayaan arrintaasi waxay noo cadaysay haddaanu nahay ehelada iyo tolka ay ka dhinteen marxuumiintu arrinkayagaasi in la dadaayo wax la qarinayo oo ay dawladdu ku gacan leedahay isag taagmayno balaayo afka lagama dhowro waxaanu ognahay in arrinkaasi dayacaadi ka jirto dayacaada jirtana ay ciidamada booliska iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo ciidamada sirdoonku qayb ka yihiin gadabtiisa waa raadsadaa geesi miigani adeer intaad qalaysay anna waa qaybinay waan la socdaa godobtayda waan la socdaa arrinkayga waana ii oolayaa meydkaygu dawladdu waxay ku mashquushay inay tidhaahdo waxaanu halla aaso iyo waxyaabo aan meel laba ka soo qusaynin oo aan mas'uuliyaddii saarnayd aan ahayn taasina waxaanu qaadan karno maanta 12 cisho ayay gawdhiirka dhaxanta dabaysha ay fadhiyaan hooyooyinkii ay meydkii dugsanayaan taasina waxaanu qaadan karno aqbalayno maaha waxaan u sheegayaa inta samaha jecel inta Soomaaliland jecel bulshada reer Soomaaliland war qarannimadeeni way duntay oo waa taasoo way caddahay oo way ku duntay dawladdii xukuumadda iyo inta wasaarad inta u haysa amniga hays xasilaan madaxweynaadaanaan ku sheeginaa cid noo hadhay oo kale ma jirto waanu isa soo marnay namada aad u dhiibatay xilalka wax mas'uuliyada oo ay hayaan ma jirto oo aan ahayn inay baneeyaan kursiga adiguna 12 cisho ayaa meyd ku dilyaalaa madaxweyne sidaad uga hadashay burco siday ehelkaaga ahaayeen siday halbowlahaaga ahaayeen inay kuwanina noqdaan baanu kaa jeclayn madaxweyne waxaanu kuugu baaqaynaa jawaab degdeg inaad ka bixiso adaan noo hadhaye gacanku dhiiglihiina gacantana loo soo geliyo ma yeelayno intuu streetka Hargeysa ku dilay ayaa la leeyahay raacdiyo reebtan waxaanu qaadanayna ma cidda u dhimanaysa waanu garanaynaa ciddayada ehelkayaga cidda u dhimanaysa waanu garanaynaa isag taagmayno waxaanu ka cabsanaynaa waxaanu ugu baaqaynaa ummadda reer Soomaaliland ee samaha jecel waxaanu ugu baaqayaa golaha salaadiinta Subeer Awal waxaanu ugu baaqayaa golaha salaadiinta Soomaaliland waxaan ugu baaqayaa golaha salaadiinta Soomaaliland guud ahaan inay arrinkaas soo farageliyaan oo ka hadlaan
laakiin walaal waxaan la yaabanahay oo aan xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee u sareeyo madaxweynuhu aan aad iyo aad ula yaabanahay 12 casho oo qadarada ah oo kulli yoom barra lagu dhawaaqaya maanta lagu dhawaaqaya waa arrin aanu qaadan kari laanahay waa arrin geli kari la 12 casho reerkan Xasan Maxamed iyo Abubakar Ciise waa markii koowaad aan qabano shir saxaafadeed annagoo qiimaynayna xaaladda jirta ee wadankeenu ku sugan yahay amni darrada saxaafadda iyo maanta waxyaabaha media isu mariya sida ay dhibaatada u abuuraan annagoo ka duulayna oo halka 2,000 qof ay noo fadhiyaan oo meydka halka ku jiro in xukuumaddu damqashada inta leeg 1,000 mitir uga dhow madaxtooyada halka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland halka maganaasa ay madaxtooyada uu ku jiro iyo halka yaalaan dhakhtarka ku jiraan 1,000 mitir ka yar oo aan ilaa iyo hadda la moodo inaan wax damqasho la yiraaha aanay jirin waa sidii waan ma xukuumadan dadka danaynayn waan ma qaldan waan garan laanahay waxaan ku soo gabagabaynaynaa dawladihii kala horeeyay waxaan ognahay dhibaato kasta oo dalka loo soo intaas oo dhibaato dalka loo soo maloogay ayaa iyagaan dhicin sirdoon ku qabtay aaway sirdoonki waxaan noo muuqataan arki karaa war dadka reer Soomaaliland xaaladan hadeenaan dhiga u yeelan inaan indha u yeelan oo aan ma iguna waxaan kala aad ula yaabanahay war had may noqotay marxuun mucaarad iyo muxaafid noqda in lagu xidho nin dhintay mucaarad laga dhigo oo la yiraahdo mucaarad uma hadli karo oo la meyd la mucaarad iyo muxaafid had may dhacday waa wax aad iyo aad inoogu magaranaysaa koow ah waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha arrinkaas sida ugu degdeg badan leh labada marxuun ee halka jira 22 caanamal halka ku jira haddaan xukuumaddu si degdeg ah aanay ugu dhawaaqin cidii dilkan geysatay xaaladaas inaanay sida ahaan doonin oo amnigu u faraha ka bixi doono waxaan leenahay sida ugu degdeg badan leh oo in loogu dhawaaqa cidii dilka geysatay waana dareensanahay sida wax loo baaray wardoodu waxay sameysay ambush way sameysay way mashquulisay ayadoo aan ku mashquulin dilkii ayaa noo muuqata aqlaan leenay garaad baan leenay waxbaan arkaynaa waxbaan noo muuqda waxaan leenay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland 1,000 mitir meydka u yaala gurigiisa 1,000 mitir u jira si degdeg ah uga soo jawaabo 24 saac soo socda jawaab baan sugaynaa ka soo baxda xukuumadda oo na deeqda markay taa sheegayso waanu aqoonsanahay weeyi u baxsaday laakiin waanu aqoonsanahay waa la yaqaanaa dil aan la aqoonsan oo baxsada oo la waayo way dhacdaa laakiin waa la yaqaano de waa zero lama bahayo lama aqoonsan lamana hay cid yahayba waa zero weeyi uu baxsado waa la aqoonsaday waa 100% waayi uu baxsaday waa la qabtay waa 100% waxaanu garan lanahay dilkan lala yahay aan la aqoonsan iyo 80% kana ay xogtu haysay ee dawladdu haysay dawladdu xukuumaddu goobta lagu dilay way joogtay xukuumaddu goobtii lagu dilay way joogtay gurmadna way ku timi goobta lagu dilay namadaana way joogtay may soo qaban markii dambana waxay tiri 80% ayaanu haynaa 80% kii waa la waayay 90% baanu haynaa 190 kii waa la waayay halka markay taagan tahay dawladdu way qarinaysaa dilka ka dhacay meesha cidii geysatay ee caruur inamada laysay waxaan leeyahay ilmaade rayaal waxaan leeyahay wuxuu ilaahay haldiid waxaan leeyahay ilaahay haldiid dawladduna haldiiday aniguna haldiiday ilaahay haldiidiyo inuu labadiina soo nooleeyo diid dawladdina halbay diidayo dee inay dambiilihii sheegto oo tiraahdo waa hebel oo waa kana gacanta loo gelsho way diiday annaguna haldiidni inaanu iska aasno oo tiraahdo war iska aasta diidnay